martiqaad buu sameeyey caasimadda labaad ee galmudug cabwa nacabda sharafta karaamada cadiinta xadda xabdida madaxweynuhu soo dhaweeyey soo dhawaada kulligii sii sheergareeya salaada faafiya nabadda caabuda iyo quruxda iyo nabadnimada iyo isjacayl ka jirta gaarsiiya caalamka madaxweynaha ayaan soo dhaweynaa insha allahu tacaala martibaan ku ahayd magaalada haddee sidii rasuulku sameeyey madaxweynuhu sameeyey an yukrim dayfa martidiisa ha karaafmeeyo si sharaf lu madaxweynuhu noo soo dhaweeyey waana u mahad celinaynaa talooyin badanna waan ka qaadanaynaa madaxweynaha anaga annaguna wixii aan waa la wadaagayna insha allahu tacaala baraha bulshada waxyaalo badan baa ka dhaco iska xayraansan marka waxyaalahaasna waa ka daalgeliyay maska canaan maaha dadina joogaayo marka jecla madaxweyne soo dhawow dal iyo dibad waa lagaa daawanaya oo haystay dabcan aqoontaasi dalkaad keentay aqoontaasi maasha allah iyo sharaftaasi calankaagi waa doos joogtaa bal fuliynimada dadka qurbajoogta laga siiyey caabuwaaq iyo si guud dad dhurwaayo oo iscunayo oo isu jiro oo isnacab oo qabaa'il magaalo kastana maaragta iyadoo jirto bal wixii laga sii akhyaartaada iyo asxaabtaada عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله كان ذلك أمها نقينا إلهي إله أمها نقينا نحن خوفرنا وسلامنا عيد مضى شرفت علي أمني صغير سولو كلمة عبدوها deegaan nabada dal nabada oo wada jacayl ku badan yahay calanka ku faana mar walbana dalka Soomaaliya si dadka u soo taagan taas way walaageeda la fudiyo sidaasan dadweynaha kale galmudug oo dhan ku qooqanaa deegaan baciyada iyo cadaalad tahay Gurceel Samareeb dhammaan degmooyinkaas kormeer baan ku marnaa bal u jeedaa dowladnimadii galmudug waa saldhigatay waxaan rabnaa inaanu sii baahino ilaahay waan kusoo dhaweynaynaa masha allah waxaan kugu baaqaynaa inaad ambasadoorkii nabadda Soomaaliya wakiil nabadda Soomaaliya ka shaqeeya inaad noqoto wakiil isdhexgalka ka shaqeeya noqoto qaniinyadii qabaa'ilada Soomaaliyeed qaniini jirtay هذه الله يضمن إذا جوجسوا هي مدحضة والله يقولون كاسو والله من إلهي يدينا وكا ما أنتوا إيش كتبه سفير هذه إحنا بدينا سفير مشكلة تاعي ما بينا ما تسمع لنا قوة ضب دولتنا مسؤولين دراسية iskudiib qoyska aad ka soo jeesto Soomaaliya sane fartay soqol kamida ku dhawaad 28 kamida qoyska aad ka soo jeeda xukuumadda waddanka oo ilaa oo laga daayo barnaamijka inuu qabto nus nus wala public raaca
شاء الله marka anna meesha iska sax galgalashada ninkii odayaasha halkan waa meesha waa si sax ka waran amniga magaalada حسيلوني دخلت علي كمدينة الحين قرب الجوي إذا الجوي بالمدرسة كلمة الحمد لله هوشة سوسي شرف لي مصور دمعتي سيف عن مكان كاسة بيشا كلنتي يدينا إن شاء الله دولة قلب إذا مدى يدقوا قدمدين وأنا صوبتين إن شاء الله محمد إذا مدى قرب كسيدا حكمتي قلبتنا وحن أقبل نصنع يوم هل كان جوجنا هنا ندوقتي لوتو وجناي هذا بحي حنا وسراعنا إن شاء الله marka ayadii baa la hirgeliyay ilaahay qowlis wala kun qisas xayaatun ya ulul albab deegaankan oo dhanna way ka hirgelisay ilaahay toogashadu hadda way ka dambeeyay qofkii qofti la galmudug waa dil ku celintaas qofti la waa dil weey waa qisaas waxaan ahayn deegaanadan ka shaqeynaysa ilaahay si nabad loo helo صح سعود وهذا يقول بجوكته وسلام يا صح يا هاي رهم نسوته يو مريكا شنت قارض وسلام يا إلهي يد دور جوكته صول عبت ودكين لو حكى دستا لأن بدأ داي متقن عودك وأنا بدأ هل يبغى إن شاء الله سعود وهذا مركا واحد لا هاي نبض قف شرعي خسر رأي مجرد يا قبيل يا كوح يا فرقة فلوس مي أنت شفتي isdhexgalka bulshada iyo sida saraakiishu ay isku xasan tahay sax iyo sida la isku qaatay bulshada isku qaadatay suwaad aragtaan maleynaya inta yasta joogto sax marka saas way bulshada Soomaaliyeed waa isdhex gashay sax waa laga soo gudbay xilliga qabiilka iyo qashinka iyo quranka lagu shaqeynayay sax Soomaalinimo wax ka yaraan naqeeq male annaguna waa idin adeecayna waana idin ducaynaynaa ilaahayna madaxweyne prime minister maamul goboleedyada oo dhan Soomaali ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo tawfiiq لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إلهي وحنا فريسان نقول رجال السيد مسلموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي نقب سنة كتابك إلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أو كم يدونه أما لحظة أضيعنه كلا ضمبين أي دعوه مركا مرلبات كعلي الصومالي سجود قبل هذا أردن صومالي أردن نبض قباق سي لو عبارتان يعلادا ديك اللي تشوشيو راب دون السمايو إلهي لبريو لو ولا لوجو أبدتك أبارها لو قد بدو بل جال مدحوين بالباقدر يعني ننعس أبارها إيو أمني يسجود بل إن دتكو ده يسجود مداني وسيداس ودك أبارها كجرا دتك قربها جوجا عقوب باقي يعني إلهي ديار قرمة لسكران مطودة بيش عالم كفرين لو درجري annagu dawladaha iyo qurba joogtaan u dirsanayna sababtoo ah iyaga deegaanka ka soo jeedo og dhibta ay dadka ku sugan yihiin marka insha Allah roobna waa la filayaa wadanku hadda qabow waa ka jira alxamdulillah hadda baab rajab badan oo roob baa la filayaa soo laabta wadankii wax ka dhista wadankii dhismi u baahan yahay aqoontii intii la hayd waa inta dibadda haddaad ku soo laabataan wadanka waa degayaan haddaad ka maqantihiin hadda aqoontii waa ka maqan واسعونايا انت قدها كنت جرت واسعونيسا عرض والنبض عرض والنبض واحد بقدنا مجد بقدين مجرت عوضها قراهم والنبض قلبوا قودها والنبض يا صح وكا هذا هو عبسي انه بيرنا وحلا يري مجرت يا وحس مجران ودك والنبض دلك والنبض صوماليا والنبض يا كلام مدحوينه وكما نقينا أجري حسنات الله قصيه حلك الله كل قرب قلو قار يوم مدحوينه إن الله لا قرب قلو برشة قلب دقنا إلهي من نماء ولا نماء توفيق الله سيو صومالنا توفيق الله سيو أن أهد بنوفر حسنا مدحوينه نجي عد ورديين السماء وكاس ومش دان وح كذلك التاجن أمي الصم كذلك التاجن ما أرجنه هذه لا يكون ما هي ما شاء الله جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله وليك وغفر أحسن الكلام مدحوينه وأبو السلام إن شاء الله تعالى هذا الرالة وحي حقا أسرة وشك يصدقنا إن شاء الله هذا كبعد تلفوننا كلا قاضينا الوحي يروح حقا مدحوينه وحال مريي مرر بدل ما حقا يا مركا رالي قريب بحلام معنا هي إن شاء الله وكل سؤال وين عوضة مدحوينه وش اللي يمنا ما أنت عدو قريش حكومة تقاضي شرب بينات عنا رجعنا وضع عصره عبد اللطيف حاج دب عصر إلياس مختار عبد الله حاج دب عصر راعي دب عصر سيد مدحوينه وشاقي
عابده waxaa looga yaqaanaa shaashiba looga yaqaanaa dad dagaal kala ma aha dad dhib la ma ahan hadii soo dhaw bulxan wariye bulxan hadda waxaan harnaa magaalada waa soo dhex maray madaxweynaha asaga ku casuumay inaan ku soo waday magaalada waa soo dhex maray horena waa u aragtay maantana haddii aan leedmo meesha laga balansan yahay tagi doonaa insha Allah haddii soo digan haddii aan leedmo magaaladu waa magaaladaadi shalaysaa oo say ku ahayd bay ku tahay barbareem kama jiro qanjafta irtaa oo dhacaysa saameyn dadka kale kuma yeelato sax maantana dee markii ninka cadaaladda la marsiiyo haddii aan leedmo waxa waaye cid danba wax ku dhiiranaysa ma jiro adna waa madaxweynaha kula balmay xaajina waa tahay bas waxaa la rabaa dembigii iyo qabiilkii iyo wixii iyo dacaayadii iyo barbagandadii casharadii kale oo dhalinyaradu ka faa'iideysan ما waxaas naftigooda ay u soo celin madaxweynaha sheegay safiir nabadeed baa tahay ummadda walaalnimadeeda iyo islaamnimada iyo tawxiidka iyo soo dhaweynta iyo madaxdooda la adeeco loo duceeyo intaasaan insha Allah iyo wixii maartay maslaxad ummadda waa insha Allah taala oo maartay in lagu dhiirigeliyo ummadda inay soo gargaaraan sida madaxweynuhu sheegay dalkoodii oo abaaraha u gurmadaan oo iskuulada iyo tacliinta wax ka dhisaan isbitaalada wax ka dhisaan ceelal biyo qodaan ka qayb qaataan danyarta u kaalmeeyaan marka madaxweyne noo soo gabagabay maxaad ku gabagabaynaysaa Soomaali si guud shanta Soomaaliya ilaa Soomaali galbeed ilaa Djibouti ilaa NFD ilaa Soomaali weyn Soomaali si guud iyo si gaaraba iyo si gaar galmudug si gaarana magaalada aad iyo aad Soomaali waxaan ku baaqayaa inay isqaataan waa dad walaalaha dad wada dhashay isku afa isku diin ah in kala qoobka Soomaaliya ay ku jirta maanta laga baxo la isku furmo dawlad goboleedyadan loo qaato goboladii hore ee Soomaaliya jiray ee gobornatooriyaashii loo qaato magacyadan madaxweynayaasha la yiraahdo tirada ka batay haddii dastuurka wax laga bedeli karo magac kale loo bixin karo حتى أد بنقول قناع قلبك كل اللي جرى مدحوين مقعدة أنت رضا بتي مدحوينياش اللي يراد ها لفتي جوا إن دستور كنت وحلا قبل لو مقعد كلام سيدا كينيا كاونتي هذا كينيا وكلام بدون كاونتي بكتير مريكن هل مدحوين ولا وأنا كنت نستي هلكا إسكت قلبك كيمان لا يسود وانشا كيمان لا ummadda Soomaaliyeed ha israacdo midnimada laga shaqeeyo daaciyada iyo mataqaana wanaagga laga shaqeeyo ilaahay diirado wadankuna waa nabad dib kama jirto shabaab waa la iska dhiciyay waxay yihiin waa la tusay meel walba ay mataqaana tagaana waa kula dagaalamayna hadda dawlad deegaankii bay dib ku hayaan halka caawada waxaan u joogaa xuduudaas oo dhan inaysan ka gudbin gurmad baa ka socda caawada mataqaana lagu gaarsiinayo gudaha Itoobiya lagu gaarsiinayo ciidamadooda iskaashi baa naga dhaxeeyo wada shaqeyn amni baa naga dhaxaysa xuduudda sidaas aan u wadaynaa Soomaali meel walba ay joogto waa ku faraxsanahay iskaashigaas idin dhaxeeya laakiin jaale madaxweyne hadda maalin dhaweyto caleen 5 qof baa niman masaakiin ay dad masaakiin ay laayeen 3,000 oo askari baa la keenay dadkii bay xasuuqeen ilaa dhowr iyo 10 bay dileen هذا الشري نين بيش المرحانة عيال الدين هل عسكري أو دقاقين ما هين مركا عندما DDS مدد قوني أسكالم يسوحوا عدالة ولا سمية رتاس مدح DDS وكلام لا قدي وعدالة لا قدي وحكن وما أنت نين ريبن وفلان لدينا شنكو لك ما أنت نين مارتي ضد كلام مساكين لدينا وبني إسرائيل بقى حسمين شيء رسول كان نوش شيء وكذي حدين نين شريفة أو حدا والدين جرين مسكين ما مسكلا فورا من مسكين هدو حدني حد كي مرين شريه مركب وحاول أوكادي مدحوينها قدام مركب على مدحوينه عدالة ولا سمية بلطاق بيرجلي أو إن بلكت عسيانك هذا الرجلي أو مسكين كهالك بنشان كتر سنة إن بدنا لقى شقية برتاسنا مارتي أو أنا الفلعين لقى السمين أو لو الشقية لو بدي معمول يو لو بدي تشوفه يو ضبط بالله هذا المجال مدحوينها ريتاس الله ونحريستو مدحوينها دول الدجان كأد من وده حريتنا xiriir baan kala sameeynaa ilaahay yiraahdo wixii arinta laga qaban karin laga qabto iskaashiguna waxa weeye sidaas oo kale annagana waxba naga dhacay iyagana waxba ka dhacan in shacabka loo naxariisto si wada jira wax looga qabto shacabkina loo naxariisto la iskuna wado marka insha Allah waqtigan haya waa salaamaya guud ahaan marka u sheeg konton qabale iyo 12 santar baan meesha ka deganna hal degmana malihin ده واحد ده هولاها جوا ولا سياسات عدالة بالله هي دقمين كده 10 كيلومتر بيسوي فأنت سواء كفتن ولكن عقشر واصل وصحيح عقشر ما هو بإيمو بيدها عقشر واصل عم يرجع ويليه بأنها واقف تقريبا يودينا كده ما يو رجع تشجع وصحيح بدي ما هو بيمرتق هذا إيمو بيدها كان مدحوين وكوم هنقينا جزاك الله خير وأحسن هذا لو حنص عنا توج شديد أن يوقفك الحكومي وحقي إلهي نفري
la daahirinayo oo wixii u fiicnaa la samaynayo khayr allah idin siiyo waxaan ku gabagabaynaynaa madaxweyne ciid ku-xigeenka ciid soo dhaweeya jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiikum dalkiinu waa nabad caabdo waa nabad galmudug waa nabad soomaaliya waa nabad madaxdu ha guulaysato ciidanku ha guulaysteen anaguna waa idin daacayna jazakum allah ان شاء الله جزاكم الله خير الله كسجل مدحونا واسرعنا ان شاء الله